bandhiga buugaagta caalamiga ee Boorama ayaa kalkiisii lixaad lagu qabatay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Bandhigan oo sanadkan howlkudhig looga dhigay ceelaliyo ayaa waxa soo qaban qaabisay Xigma Foundation waxaana ka soo qayb galay aqoon-yahano, siyaasiyiin iyo sidoo kale bahda qoraayada. inta uu bandhigani socdo waxa lagaga bogan doonaa doodo iyo sidoo kale aragtiyo kala duwan oo ay soo bandhigi doonaan martida ka soo qayb gashay. wala dareenkaygu aad baan faraxsanahay maanta aniga magacaygu waa Xamda aniga xayaad yarba si aan uga soo qayb galo buugan magaalada Hargeysa ayaan uga nimi shalay baan soo galay magaalada Boorama intii uu socday barnaamijkan buug feerka ee magaalada Boorama lagu qabtaa waa markii ugu horeysay horta aan ka soo qayb galo xayaad yar iyadoo sidoo kale waa gabadh yar oo maqal kala maxaa la yiraahdaa aad ugu faraxsantahay in maanta ka soo qayb gasho barnaamijkan oo sidoo kale aan arkin magaalada Boorama ay maanta ugu horeysay iyadana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay labadaba inaan ka soo qayb galo barnaamijkan. magacaygu waa Khadir Diris Xasan maanta waxaan ku suganahay Boorama Book Fair oo kalkiisii lixaad lagu qabanayo magaalada Boorama. bandhigani waa bandhig qiimo leh oo gobolkana u muhiim ah kulli doodaha lagu soo bandhigayo martida lagu soo marti qaaday aad bay wada muhiim yihiin bulshada reer Awdalna waxaan jeclaanahay inay ka wada faa'iideystaan. halkudhiga sanadkana waa ceelaliyo oo dhaqana kabacdina maxay buugaagta lagu soo bandhigayeen inay reer Awdal aad uga wada faa'iideystaan iyo iibsadaan ayaan ku boorin lahaa. barnaamijkan waa barnaamij aad u qiimo u leh oo Boorama aad ugu muhiim ah dhalinyaradu inay ka wada faa'iideystaan. cidda aqoon-yahanka lagu soo casuumayna kulli khibradaha inala wadaagayaan qof walba inuu noodkiisa soo qaato ka qayb qalo oo qorto aad baan ugu booriyay dhamaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaaga adigoo ku bilaabaya maanta waxaad ka soo qayb gashay bandhiga buugaagta caalamiga ee Boorama. bal ka waran dareenkaaga ku aadan ka qaybgalka. magacaygu waa Maryam Salaawan Maxamed dareenkayga ku saabsan inaan ka soo qayb galo bandhiga buugaagta Boorama ama Boorama Book Fair waa dareen aad u qurux badan aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo markii saddexaad ama kalkii saddexaad ama sanadkii saddexaad ay ii tahay markaa bandhigan ama madashani waa madal aad u aqoon badan waa madashii aqoonsiyaasha waa madashii dhalinyarada waa madashii aqoon isweydaarsiga oo dhan karo waa madal dhammaan dalkeena Soomaaliland oo dhan aad ugu muhiim ah waa madal dadku ay wax ku kala faa'iideystaan buugaagtiiba sidoo kale yaala oo discount ku jira ama qiimo dhimis sidoo kale waxay jooga ama lagu marti qaaday barnaamijka qoraayo dad aad u aqoon badan oo bulsho ahaan aan aaminsanahay in wax laga faa'iidi karo sidoo kale waxaa meesha madasha jooga dhalinyaradii bulshada qaybaheedii kala duwan oo iyaguna u yimaaday inay aqoon faa'iideystaan ama ay wax kororsadaan marka iyagu ugu mahad celinayaa qof walba oo ka qayb qaatay bandhiga buugaagta Boorama in sanadkii lixaad la soo bandhiga ama la soo dadkuna ka soo qayb galaan dhammaan bulshadana waxaan ugu faa'iideynayaa oo ugu bashaareynaya inay ka faa'iideystaan muddada ay bandhigu socdo qiimo dhimista ay ku jiraan buugaagtu aad baan u mahadsantihiin wada salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin. horta magacaygu waa Xamsi Maxamed Nageeye waxaan ka mid ahay dhalinyarada Boorama. bandhigan waxaad moodaa madalaha qaar inuu ka qiimo badan yahay waa bandhig ay joogaan dadka aan hubo inay yihiin miirta waddankeena ku nool especially Boorama gobolkan aanu ku noolnahay waa gobolkii aqoonta iyo xadaaradda iyo ilbaxnimada sidaas darteed waxaan fahansanahay oon aaminsanahay in wax badan laga faa'iiday. waxaa maanta uu bandhigan ka duwan yahay bandhigyadii hore kelmadda halkudhiga sanadkan ah ee ceelaliyo af Soomaaliga markaan joogno waa shayga loo yaqaano sahaminta in wax la sahamiyo waayadii hore waxay sameyn jireen marka meel guuriye reer qof la diri jiray oo deedna sahan ku soo eegi jiray deedna kelmaddan ceelaliyo waa sahamin dhan kale markaad ka eegto waa baaq bulshada iyo aqoon-yahanka ku dhiirigelinaysa in la sameeyo hab fikir toosan oo ku dhisan hal abuur iyo karti. sidaas darteed waxaan aaminsanahay qof kasta oo waqti geliya inuu bandhigan ka soo qayb galo daqiiqad kasta uu joogo inuu faa'iidayo wax ka badan inta uu faa'iidi lahaa intuu maqan yahay. sidaas darteed sidoo kale waxa yaala buugaagti oo iyaguna madash ka maqnayn waxay jooga tiimkii buugaagta oo iyaga laftooda buuggii aad sahaminaysay hoosta ka eegaysa slide buug hebel hadduu koskiisu aad u yar sareeyay iminka isagoo dhisakoona ku yaal waa iyada lafteedu waxaan oran karaa waa fursad labaad oo dadka maanta Boorama joogay Book Fair ka joogay chance ku helayaan. markaad miisaamaysid aragtidaada fog wax ku eegayso doodaha waxa ku casuuman dad aqoon ahaan lagu soo xulay
oo dadka soo xulay waa dad fahansan sida ay waaqicii xaaladdu siday tahay yatana su'aalo badan bay ka jawaabayaan su'aalaha badan ay ka jawaabayaan waxaan aaminsanahay in gobolkan ay dan u tahay waddanka ay dan u tahay qof kastoo joogan wax ka faa'iiday aad baad maasantay walaal xamse xayd CBA TV Boorama ما شاء الله سو دhowaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeegga internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121